خليل بن عبد الله بايولي مؤمنك صدح ميلودي لغا واي ما حد صدح ميلودون با لهدحي مسجد يعمره وبيت يستره وحاجة لا بأس بها صدح ذا أيا قفك مؤمنك الله دوني وقت يسير وكبحي مساجد وعمرها مر صلاة بو كتغنيا مر قرآن بو أخرسنيا مر علمك علمada ka baranaya mar dadka muslimiinta bila salaad dayacan ayuu u fikirayaa intuu ziyaarto ayuu masaajidkii culimada iyo cilmiga iyo khayrku ugu yeeraya wa baytun yasturuhu wafda muuminka meesha saddexaad la doon in lagu yimaado aqalkaaga waqtigaaga ku bixiyo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso saxaabada rasuulku masjidka markay joogaan arday bay ahaayeen guryahooda markay togaan muallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaan muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen masjidka markay joogaan arday abubakar baa wax baranaya oo cumar baa baranaya oo cali baa baranaya oo cuthmaan baa baranaya tacliim wa tacallum rasuulkay ka baranayaan calayhi salaatu wasalaam marna dhexdooda isbaran iyo isbarayaan markay guryahooga tagaanna waa maxay waa mucallimiin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa ilaahay nebiga rumeeyeyow reerihiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi cali ibn abi aalib wuxuu ku fasiray waa reerkiina diinta bara weeyaan macnuhu madarasad iyo malcaamad iyo jaamacad magaalada madiine cahdiga may lahayn nin kastoo saxaabiya aayadda qur-aanka iyo qowlka uu nebiga ka soo maqlo ayuu habeenka reerkiisa ula tegay uu reerkiisa baraayo markaasaa mar keliya iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo raggii waxay noqdeen dad cilmigoogu meel keliya wada socdo oo cibaadada meel keliya ka wada socda oo diinta meel keliya ka wada socda oo fahmiga diinta meel keliya ka wada taagan mujtamaca waxay noqdeen hadday 500 oo ninoo martiya maanta masjidka nebi maxamed ay timaado meeshii lagu marti qaadayna waa diyaar aqalladii diinta lagu barayna waa diyaar mujtamac cajiib weeyaan mujtamacaas guryahooga markay tagaana mucallimiin bay noqonayeen mar aliya markay dadka kale u tagaana muballighiin alladhiina yuballighuuna risaalaati llahi bay noqonayeen difaaca addiini walwatan diinta markay noqoto difaaceegana mujaahidiin bay ahaayeen bilmaali wannafs naftoodii maalkooga diinta ilahay ku difaacayeen marka muslimka waxaa la doonayaa waqtina masaajidkaaga sii waqtina gurigaaga reerkaaga iyo umadkaaga sii waqtina waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid kasbi xalaala saad xaaraan uga badbaadid saad mas'alada bini aadanka aad uga badbaadid saad u noqotid yadul culya gacanta sarraysa ee la baxaysa sadaqada buu nebigu yidhi ayaa ka khayr badan tas hooseysay dadku wax weydiisanaysa saddexdaa sifaa qofka muslimka laga doonaya saddexdaa meelood